الله سبحان الله. وحوي حسوسية بريبان أنه جماعة خروج كوب حدا ماشي الليلة مناسوتا سعيد يحيى الله نحرسته رحمة الله عليه ayaa iga yar waxa dhayn soo booqo Soomaaliya halka waa badan yihiin oo barigii dowlad almuhim maashi mana soo taantagay marka masaajidkii markii hawshii kalimadii waxay dhamaatay baanan yimid waa isgaranay inaan reer xamar islaahayn kaas balbalaar meesha leeyahay xamar ciyaalka xaafadda mutaqan ciyaalka xaafadda islaahayn marka wuxuu yiri sheekhu dhibaato ay haysata horta jamaacadu waa kuwa yiraahdo khuruujka dadka nala baxo wuxuu yiri waa ku qasbanahay balahan anaaba khuruuj iska ahaayo guriga waa liga soo yiri marka alxamdulillah daaman meelan saxda aan idin ka helo waaba fiicanta gowda laakiin bal waxaan rabaa buu yiri meeshaas cid kale oo igu celin kartaa oo adiga aan ahayn mar ilaahay baa ii ka soo diray qofkaas cid ay wadaadadii dhulkan joogay way ka maqli weeyay sheekada waxba ka maqli marka in keeno bal iraaco telefoon iyo waxaasna wax ma tarayaan waa inaad adigu tagtaa guriga tagtaa adigu sidii baa dhacday alxamdulillah gurigii baan tagnay sidaa uu hadda shaacali sheegay barbariyo iyo ballama aan kala galay iyo inuu ninkan hagaagi doono iyo inuu fiicnaan doono ya ilaahay ba toobada waa aqbalaa in toobadiisa aad qoosho الله لطيف بعباده مركا وبديه شركته تاسي كواسي كم ذهيد الحمد لله انك على كل حال قريش وكن نقض ان شاء الله ولا قدام برقاس اي قدام بشيء قروش كنا انا لما بحمد قريش وسكال هي او دمات الله لطيف بعباده مركا شعالي ماشي وليه ماشي كرني انا ما وضعها كل غير ما شيء يشا مصطفى بير هو كسو غوريو شيء يمديو kolka dadku runtii dhulka hadalka uu Sheekh Mustafa sheegay dhab ah waa shirkad baabaaday way yartahay saddex markay yihiin laba ayaa faashil fil bayt la yumkin ma waa yartahay ba dad isku daa'imay waa yartahay wali waxa arkaysaa dad duqoobay oo isku duqoobay caruur weyn isku dhalayo lagu leeyahay meesha waa lagu kala tagay ama waa lagu kala tagay ma wadaadkii waa la eriyay marka Allah naga badbaadiyo sharkaas Allah naga badbaadiyo tawfiiqda Allah na waafajiyo meelaha laga yaabaa in badan oo idin kamida aad yaani shinsanaysaan oo rajaynaysaan oo isleedihiin nolol fiican baa idin ka horeeyay xaqiiqatan nolol wanaagsan idin kama horeeyay tadakhul saafir ayaa lagu yeeshay fil usra ama dhinaca xagga dumarka ha noqoto ama ciyaalkii baa hadda ka daranba caruurtaadii oodan maamuli karin oo waxa oran karin oo kelimad dhihi karin marka shar badan oo ilaahay naga badbaadiyay weeyo oo ilaahay islaamkeena iyo diinteena nagu siiyay Allah nagu daa'imo insha Allah ta'ala ikhwani waffaqana Allah iyaakum lima yuhibbu wa yarda rinta in gurigu bittaqwa ku hagaagayo wa rin muttafaq alayha taqwada ilaahay baana yani gurigaasi ku daa'imi kara oo xuquuqda iyo fawqaha al-ihsan labadiiba keeni karta qof walba markuu ilaahay ka baqo حتى في باب تعدد الزوجات زوجاتك labadiyo oo meesha ugu mashaakil badan arrintii marka lagu soo noqdo reeraha oo yani dadka muslimiinta ilaahay taqwadu daba dhigay ayatu ta'addud oo mesela ayadahan inta badan dadku ay ku dadkan arrimaha diidan ay ku dhagaan walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum ma dhamaystiran fala tamilu kull al-mayl magaran jamaa'at tafsir idinka Soomaalida tafsiirka sibaa wada dhageysatiin waxay ka dhigan sida ayuha alladina amanu la taqrabu as-salaa halkaas oo lagu joogsado ma dhamaystiran fala tamilu kull al-mayl magaran ilaahay wuxuu nafiyay kamaal al-adala inayna suurtoobin waana sax bashar baatahay bani aadam baatahay la yumkin an ta'dil kull al-'adl lakin fala tamilu kull al-mayl fatadharuha kal-mu'allaqa wuxuu ilaahay daba dhigay wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafuran rahima wa in yatafarraqa markii talaqu imadana yughni allahu kullan min sa'atihi وكان الله واسعا حكيما آياتي عام كهيدا شامل كهيد بإلهي دبرغي ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض
وكان الله غنيا حميدا. marka ikhwaani taqwadu xusulkeedu waa biljid walijtihaad. iimaanka alxamdulilah ilaah baa ku siiyey, muslim baa tahay, mudiic baa tahay, musalli baa tahay. kulamaa aad daacada ilaahay ku dadaashid fii daatika naftaada aad ku dadaashid, usradaada aad daacada ilaahay aad ku dadaashid, acmaasha saalixada aad la timaadid, iimaankaa kuu kordhaya. iimaanku hadduu kuu kordhana taqwadii baad helaysaa. taqwo haddaa heshana dee iskaba dhaaf yani usro wanaagsanaatay iyo umuur kuu hagaagtay jannadii aakhira ahayd qayb ka mid ahba ilaahay mucajal kaaga dhigayaaba, noloshaadii adduunkaaba janno kuu noqonaysa. sacaadatu addunyaa baaba ilaahay ku siinayaaba bitaqwa allahi tacaala wa taacatihi. sacaadada iyo liibaanta iyo reeraynta iyo faraxa meel lagama iibsado, dukaamana laguma gado, dowladuhuna ma sameeyaan, cid bixin kartana male ila allah. ilaahayna wuxuu ku xidhay helideeda sabab uu yeelay, alaa wahuwa taqwa, inaad ilaahay ka baqdo oo taqwada badsato oo dikrigiisa badsato. kulamaa qofku uu ka dikri badan yahay oo ka taaca badan yahay oo ilaahay uga dhowaansho badan yahay ayuu ka sacaado iyo liibaan badan yahay. xadiidkan saxiixa ah ee kulli aan wada garanaynayna soo wada maray, nebigu laba nin buu sheegay, labaduba ay seexdeen. kullunaa waa bani aadamkao dhan waa seexdaa. wuxuu yidhi idaa naama axadukum yacqidu الshayطaanu calىa qaafiyati ra'si axadikum ida huwa naam ثalaaثa cuqad yadribu calى kuli cuqdaة calayka leylu طawiilu farqud fain istayqada fadakara allah inxallat cuqdah fain tawada'a inxallat cuqdah fain صalaa inxallat cuqaduhu kuluha فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. للعجب إخواني حديث كان أئمته كل جود وحي كسو دارين أما يكوشاجين في باب قيام الليل، في باب صلاة الفجر كومي شيء قيام الليل بلغ هذا يا شيطان كأيا وحكو كنتيا رأسك أما قافية رأس أحدكم مدحيسة saddex guntin oo qaybi oon la arkin, mid walbaba wuxuu ku dabcinayaa oo ku qorayaa calayka leylun tawiilun farqud, habeen dheer baad haysataa iska seexo. waa waxaana markaad soo gadgadoonto ama aad musqusha u kacda ama saacaddu kugu qaylaysa ama telefoonka aad isagaa kula hadlayo, waa cuqadkaa weeye, iska sii jif weli weeye, habeen dheer baad haysataa. marka haddii uu kaco oo uu ilaahay xuso, وأنا سنة إلى إله حسن مركات كعدو لا إله إلا الله ذكر الله هل حبا فرميش عقد كي مدبا فرميش قنتنتي مدبا فرميش هدي ويشستنا ديك هلتين لواد با فرميش هدي وصلاة الليل تكدنا ساد حديبه وفرميان محا كرتي ما يوكدلنيا فأصبح طيب النفس نفتي سمني طيبته وانا اكسنتهاي او نشيطه وحياة الجنة سعادة لبان رأيين فرحة أي ولا سوكع يا قفكاس. وإلا هاتو سايلي وايو أو كعي وايو أو طبعي شيطان كو طبعي ولا سيحضو أصبح وحوى بريستا خبيث النفس كسلان. من نفتي سؤال خبيث تهي أو كسلانه عاجزة. طيب النفس نشيطا وحاكدنا نهيسا أخلاق دي ونكسنيد وحل وحي فينا أما قويش هالنقطة أما معاملة دي زوجة ولا لها النقطة أما عرورتي سي سوء نقل لها النقطة أما أمورتها حتى بناك مركو بحو شغدي سي سوق ذنيو وهن طيب النفس نشيطة وفرحانة وهن مشكلة هي سنين لأن سعادة دي بقى إلهي قلبي يسكوش بقى واللي بنسيها ولو فقير بقى هذا ولو يونا وحبابها هي سنين تنكل أنا محاكا لنا ليسين وخبيث النفس وياي ونفتي شوي حنتهاي وحباب دول قادن كريم أو وحباب أهم بوحك الدجاج مركا يوسن وركو نلسي باهنا إن شاء الله مشايخ ذا نور دمي سي باب كان لقاه الله يقيس كدحدي شوي وهجاجان أعماشي نبوة نبي عليه الصلاة والسلام وأسرة الدحلسية أين كود ذلو
oo gurigii reerkii wax kasta waa loo kulmaa, cuntadii waqti baa loo kulmaa, faajintii kale iyo bahalladii la daawanayay mar baa loo kulmaa haddii la rabo. waxyaalaha kale oo dhan waa laysu waqti dikriga ilaahay loo kulmana ha la samaysto oo reerkoo dhan ay isu yimaadaan oo xalaqatu tacliim la sameeyo oo ilaahay la xuso oo qur-aanka la akhristo oo xadiidtii nabiga la akhristo calayhi salaatu wassalaam. halkaa maxaa ka dhalanaysa? malaa'igtu inay soo degto, naxariistu ay soo degto, ilaahay uu xuso. muddo yar kadib waabaa la arkay, waana la jarribay in badan oo reero oo mashaakilkooda la xallin waayey. muddo yar kadib xalaqadaas dikriga ilaahay markii ay sameeyeen, ilaahay dhibaatadii waa ka dulqaaday. malaa'ig baa meeshii timid, shayaadiintiina meesha way isaga tageen. umuurtan umuur haybi weeye, waxaana lagu gaarayaa bimujaahadati nafs. waana la ogaado wax kasta taasaa ka adag. darsi inaad dhegaysato, tafsiir caawa soo dhegaysato, masjidka tagtid, ama darsi kale aad ku taxantay, ama muxaadaro sidan aad u fadhiidid, waa kuu sahlan tahay. laakiin guriga inaad islaantii iyo carruurtii iyo intaad soo hor fadhiisataan aad axaadiista nebiga iyo qur-aanka akhrisataan, waa arrin aad u adag oo mujaahado badan u baahan. waana ahamu asbaab ta ugu weyn ee wax ku hagaagaan weeye. waana sunnadii nebiga iyo saxaabadiisa radia allahu canhum. khayrka ay nebiga ka maqlaan sala allahu calayhi wasalam gurigooda la tegi jireen, khayrkaasay saa u gudbin jireen. abu salama radia allahu canhu xadiid buu nebiga ka maqlay, walxadiidu fi saxiix. wuxuu maqlay nebiga oo leh maa min imri'in muslimin tusiibuhu musiiba ay ku dhacdo oo fayastarjic ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun yihaa, uma ducadan ku ducaysta allahuma ajurnii fii musiibatii, musiibadayda ilaahow iga ajarsii, wa akhlif lii khayran minha, wax ka khayr badanna ilaahow iigu bedel. axad saa yeela ma jiro ilaa ilaahay wuu siiyaa. xadiidkii buu gurigiisii la tegey. umu salama oo zawjadiisii ahayd baa ka maqashay. musiibadii reerkii bayba ku timid oo isagii baa dhintay. umu salama iska sheekaynaysa radia allahu canha, waxay tihi markii uu dhintay abu salama ducadii baan ku ducaystay, laakiin waxaan isiri bay tihi ducadan ahay wa akhlif lii khayran, isaga mid iga khayr badan ilaahu isii, waa ila suurtageli weyday. kee abu salama yaa ka khayr badnaan karaba? akhlaaqdiisii wanaagsanaa iyo mucaamaladiisii dayibka ahayd yaa isagoo kaleba noqon kara. ducadii waa ku ducaysatay. ciddadeedii markay dhammaatay bay tihi, weliba laxdadii arrintan ay dhacday ayay taqyiidisay oo qortay. waxay tihi aniga oo maqaar maxaa la odhan jiray harakade magdinaya soomaahin af soomaali waaba iska sii iloobaynaaba, ayuu nebigu iga soo idan qaatay iridda. waa rasuulullahi sala alla alay wasalam. dabadeed barkin baan u dhigay bay tihi, xashwuhaa leyfun oo ku fadhiistay. fakhatabanii ilaa nafsihi sala allahu calayhi wasalam. naftiisuuba ma aragtay ii khidba, yani inuu guursado. markaasaan ku yidhi bay tihi yaa rasuul allah, qof horta muslimadahoo mu'minadoo ku diidi kartaa maba jirto, oo taasi arrintaasi imaba suubanaba, laakiin 3 ceebood baan leeyahay. waa kii sheekh hadda lahaa qof walbaba wixiisa sheegi maayo, laakiin iyadu way sheegtay. waxay tihi 3 ceebood baan leeyahoo, ceebta koobaad waxay tihi anugu waan weynaaday oo qof weyn baan ahay. tan labaadna waxay tihi carruur baan leeyahay, oo carruurtu dee ceeb maaha, laakiin waa hiqal, waa culays, waa inaan kugu culaysiiyo ma jecli. arrinta saddexaadna waa arrin qalbiga ah, oo kuwa hore maadda maxsuus ay ahayd, laakiin kan waa arrin qalbi oo waxaan ahay bay tihi qof qiiro badan, qiira masayr badan baan ahay, adiguna haween badan baad leedahay. haddaan adiga isu kaa mujaamilay, waxaan ka baqayaa ilaahay qalbigayga intuu wax ka daalacdo inuu igu cadaabo. marka 3 ceebood baan leeyahayoo ee si kale kumaba diideen, waana ku diiday kuma dhihi kara bay leedahay rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam. nabiga sala allahu alayhi wasalam arrintii waa u sahlo, wuxuu yidhi da'da aad sheegatay amba waa iqahaysaa amba da' baan ahay. falaqad asaabani aladii asaabaki. ciyaalkana soo maaha, waa ciyaalkayga, waa ciyaalu ka ciyaali. arrinta saddexaad oo masayrka soo maaha, fa ana asalu allah, xalka agtiisa waaba iska sahlan tahayba. alxal cindu sahal. anaga yaqiinta eber naga noqoto saasaan meelaha derbiyada madaxa ku garaacayna. ama alqiira soo maaha, fa ana asalu allaha, ilaahay baan baryayaa oon weydiisanayaayo fayudhibuha canka, waa kaa kaxaynaya, ilahay baa kaa kaxaynaya. qiirada ilahay baa kaa kaxaynaya.
أم سلمة وحيتري فأبدلني الله إلهي وحيقو بدلي خيرا من أبي سلمة وكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أركا أمهات المؤمنين سيدا سيكون نغطي، بل من أكثر أمهات المؤمنين حديثا بعد أمنا عائشة نغطي رضي الله عنها وأرضاها، وحين تاكوها الشيء وأساسه تكوين حلقة التعليم في البيت. قرية إن آن لغدقين من اللغو عنتيو اللغو عبو وقضاء الحوائج والشهوات كلية واللغو إيو فرفشئية كلام فارغ وذكر إلهي لغا خالي لباتو دن هل كاسي كتم هذا حديث أرنتي هورين شيغي قيام الليل ككساب سني ما أركتي أن كاففتين إلى هشيس هكسي هرمرو اللي سوسي شيغو حلقة تعليم كقرية لغا سميني أمورها سائلة تقوى نغسينيا قريقنا وكوهاقيا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اجعلنا من عباد الله الصالحين. تفضل شيخ.